Kulanti wacan asxaabey kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo waxyaabaha ay qorayaan wargeysyada ka faallooda guud ahaan kubadda cagta saacadihii ugu dambeeyay. Muuqaalkeena waxaynu kusoo qaadi doonaa maanta Cristiano Ronaldo iyo Harry Maguire oo noqday xidigaha loogu neceb yahay horyaalka Premier League. Golaha kooxda Arsenal Bernard Leno oo si rasmi ah ugu wareegay koox ka dhisan horyaalka Premier League. Dean Henderson oo kooxdiisa hore ee Manchester United ku tilmaamay dambiilayaal. Sidoo kale Chelsea oo la wareegtay goolhaye iyo wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga. Muuqaalkan intaana bilaabin saaxiibayaal like Sara sina share gareeya si asxaab badan u gaaro. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatana fadlan subscribe noo saar si aad la socoto wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyo waxyaabaha cusub kooxdaada. Aynu ku bilownay ugu dambeyn wayna hayaan inay bilaabmaan horyaaladii. Waxaynu soo tirnaba waxaynu dhahnaba intaas ka hadhay inta kala ka hadhay ugu dambeyn 2 cisho ayaa ka hadhay inay bilaabmaan horyaalada qaaraddaas Yurub. Saddexda horyaal ee kala ah Bundesliga, Premier League iyo League One waxay bilaabmi doonaan maalinka Jimcaha. Waxaana lagu furi doonaa kooxaha Frankfurt iyo Bayer horyaalka Bundesliga. Premier League waxaa lagu furi doonaa Crystal Palace iyo kooxda Arsenal. League One waxaa lagu furi doonaa Lyon iyo Ajaccio oo ka wayna hayaan. Ugu dambeyn wayna bilaabmi doonaan horyaaladii. Aynu ka gudubnay labada xidig ee Cristiano Ronaldo iyo Harry Maguire ayaa noqday xidigaha loogu neceb yahay horyaalka Premier League. Markaynu eegno xidigaha inta badan aflagaadooyinka la kulma gaar ahaan barta Twitter-ka. Daraasad ay sameeyeen 2 maxad oo ku yaala wadankaasi UK ayaa soo saaray 10 xidig ee aflagaadooyinkii ugu badnaa loo geystay barta Twitter-ka xilli ciyaareedkii hore. Waxay sheegeen inay hogaaminayaan labada ciyaartoy kooxdaasi Manchester United, Cristiano Ronaldo iyo Harry Maguire. Xilli ciyaareedkii tagay waxaa xidigaasi Cristiano Ronaldo barta Twitter-ka loo geystay aflagaado 12,520 qof ayaa aflagaadeeyay xidigan, halka Harry Maguire oo kaalinta labaad uu ku jiro ay aflagaadeeyeen isagana 8,500. Xidigaha kale ayaa bartani ka soo muuqday kooxda Manchester United Marcus Rashford, Lingard, De Gea, Paul Pogba, Bruno Fernandes ayaa iyaguna ku jira. Waxaa sidoo kale ku jira Harry Kane iyo Grealish. Xidigaha Manchester United waxay ugu badan yihiin aflagaadooyinka xilli ciyaareedkii dhow waxay ku fashilmeen kooxdaasi Manchester United in qaabkii lagu yaqaanay ay ku soo celiyaan. Waana sababta jamaahiirteeda iyo taageerayaasha guud ahaan dunida kaleba ay inta badan ay xidigahan u bartilmaameedeen. Waxaa ku jira Jack Grealish iyo Harry Kane. Harry Kane oo isaguna kooxdiisa Tottenham xilli ciyaareedka intii bilowga aan qaab ciyaareed fiican ku soo bilaaban. Grealish oo isaguna 100 milyan ay kooxda Manchester City ay soo siisatay oo isaguna aan sidii laga filayay aan noqon oo isaguna ku fashilmay kooxdaasi Manchester City. Sidoo kale waxa guud ahaan kubadda cagta aflagaadooyinka loo geystay waa 2 milyan iyo 300 oo kun oo aflagaado ayay taageerayaasha kooxooda amaba ciyaartoyda u geysteen. Waxaana 600 oo kun loo geystay amba la beegsaday ciyaartoyda horyaalka Premier League. Gaar ahaan kooxda Manchester United ayaa ku badan aflagaadooyinka la geystay sababtuna waxa weeye qaab ciyaareedkii amba xilli ciyaareedkii xumaa ee kooxdu soo qaateen. Waxaana hogaaminaya ciyaartoyda aflagaadooyinka ugu badan loo geystay labadooda xidig ee Cristiano Ronaldo iyo Harry Maguire. Dhanka kale golaha kooxdaasi Arsenal Bernard Leno ayaa ka hayaamay kooxdiisa Arsenal waxaana uu wareegay kooxda sanadkani u soo dalacday horyaalka heerka koobaad ee Fulham. Tan iyo markii oo golaha Ramsdale uu soo baxay Arsenal, golahani ayaa ku dhibtoonayay inuu position uu ka helo kooxdiisa Arsenal waxaana uu go'aansaday inuu isaga hayaamo. Waxaana uu wareegay kooxdaasi Fulham ee imika soo dalacday horyaalka heerka koobaad. Sidoo kale golahii hore ee kooxda Manchester United Dean Henderson ayaa kooxdiisa hore ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal. Waxaana uu sheegay inay u sameeyeen sanadkii hore ballanqaad been ah oo ay ka lumiyeen 12 bilood oo xirfadiisa kubadda cagta. Waxa uu sheegay in tababarihii hore Ole Gunnar Solskjaer uu ballanqaaday inuu ka dhigan doono dooqiisa koobaad xilli ciyaareedkii hore.
balse goolhayahani dhaawac ugu seegay Yuuradii iyo 3dii wiig ee ugu horreeyay markii uu ahaa bilowga xilli ciyaareedkii hore oo ku maqnaa COVID-19 ayaa goolhayahani sababtay in laga doorbiro David De Gea. Haddii aan eegno xidigaha ugu qaalisan ilaa hadda lala kala wareegay suuqa xagaagan, runtii haddii aan eegno suuqani aad ayuu uga duwan yahay marka loo eego sanadihii hore. Tan iyo markii uu COVID-19 uu bilaabmay, kooxaha inta badan waxaa saameeyay dhaqaale xumo, ciyaartoy in la iibsada aad ayay u adkayd. Waxaad moodaaba sanadkan in kooxuhu ay aad uga soo kabteen dhibaatooyinkii amaba saameyntii uu kaga tegay COVID-19. Inta badan koox walibana sanadkan way is adkaysay. Koox aan ciyaartoy iibsan ha noqoto kooxaha heerkooda hooseeyo, koox waliba sanadkan way is adkaysay. Runtii koox walba waxay iibsatay ciyaartoy qaaliyo. Sanadkan lacago badan ayaa la qarash gareeyay. Haddii aan eegno xidigaha ugu qaalisan ee sanadkan lala kala wareegay, inkastoo weli furan suuqa kala iibsiga, haddana haddii aan eegno xidigaha ugu qaalisan, waxaa kaalinta koobaad ku jira Aurelien Tchouameni oo kooxda Real Madrid ay Monaco kala soo wareegtay lacag dhan 88 milyan. Kaalinta labaad waxaa ku jira Darwin Núñez oo ay Liverpool kala soo wareegtay Benfica 82 milyan. Waxaa kaalinta saddexaad soo galay De Ligt oo ay Bayer isagana Juventus ay kala soo wareegtay lacag dhan 73 milyan. Waxaa kaalinta afraad ku jira Haaland oo ay Man City kula wareegtay 66 milyan. Waxaa kaalinta shanaad ku jira Richarlison oo Tottenham ay kala wareegtay 63 milyan. Rafinha ayaa kaalinta lixaad ku jira, Barca ayaa kula wareegtay 63 milyan. Lisandro Martinez oo ay kooxda Manchester United kula wareegtay 63 milyan isagana. Raheem Sterling oo ay Chelsea kula wareegtay 61 milyan. Gabriel Jesus 57 milyan. Jules Kounde Barca kula wareegtay 55 milyan. Calvin Phillips 53 milyan. Xidiga 12aad ayaa ah Robert Lewandowski oo isagana kooxda Barcelona ay ku soo xirigelisay lacag gaadhaysa 49 milyan. Runtii 12 xidig waa 12 xidig ee ugu qaalisan ilaa hadda xidigaha lala kala wareegay. Welina suuqa uu furan yahay, waxaa laga yaabaa inay isbedesho oo xidiga kale suuqa lagala wareego. Suuqana aad ayuu uga duwan yahay marka loo eego dhaqdhaqaaqa ay sameynayaan kooxuhu. Koox walibana waxay diyaar u tahay in sanadkan ay la wareegto xidig adag oo ay kooxdeeda ay ku dagaalami karto. Kooxda Chelsea ayaa goolhaya Gabriel Solonina kala soo wareegtay horyaalka wadankaasi Mareykanka, waxaana 18 jirkan ay kooxda Chelsea ay kula soo wareegtay 15 milyan. Dhanka kale, laacibka khadka dhexe ee kooxdaasi PSG Gini Wijnaldum ayaa isaguna qarka u saaran inuu ku biro kooxdaasi Roma oo heshiis uu la gaaray, waxaana ay kooxdaasi PSG isku diyaarinaysaa in laacibkeeda khadka dhexe ay amaah ugu gacan geliso kooxdaasi Roma. Chelsea iyo kooxdaasi Monaco ayaa iyaguna ugu dambeyntii ka wada xaajoonaya heshiiska amaahda ay kooxdaasi Monaco ay kula wareegayso daafaceeda Malang Sarr oo iyaguna waxaa ku jira heshiiskaasi dooq ah iibsasho ku dhow ilaa 12 milyan in ay siisan karto kooxdaasi Monaco waa markii uu dhamaado heshiiskaasi amaahdaasi. Dhanka kale, daafaca bidix ee kooxdaasi Manchester United Alex Telles ayaa qarka u saaran inuu ku biro kooxdaasi Sevilla. Tan iyo markii ay Sevilla iibisay Jules Kounde, waxay suuqan ka diidaysaa daafac ay ku buuxiso daafaceeda. Sidoo kale waxay ku dhowdahay daafacan kooxdaasi Manchester United Alex Telles in heshiiskaasi la dhamaystirana aad ayaa loogu dhow yahay. Daafaca kooxdaasi Manchester United uu ku qanacsan yahay inuu u wareego kooxdaasi Sevilla. Kooxda Barcelona ayaa iyaduna wada inay inta badan ay kooxdeeda ay ka saaraan xidigaha aan inta badan looga baahnayn kooxdaasi Barcelona, waxaana inta badan ay doonayaan. Waxaa jira laacibiin badan oo Xavi uu suuqa dhigay oo u sheegay goor horeba inay kooxdaasi iskaga baxaan. Waxa isaguna wararka ay sheegayaan Oscar Mengueza inuu si rasmi ah ugu biiray Celta Vigo. Caafimaadka ayaa la dhameystiray subaxdii. Barcelona ayaa iyaduna doonaysay in xidiga badan ay ka saarto safkeeda. Wataa maanta Oscar Mengueza ka saartay kooxdeeda. Markaasi Barcelona
xadiga badan ayaa jira wali laga yaabo in kooxda ay ka bixi karaan. Wararkeena ciyaar wanaagsan saaxiibayaal, intaynu kulmi doono wararkeena kale. Wassalaamu calaykum.